بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرحad weyn ayaa ay noo tahay maanta inaan u fadhino xafladii nikaaxa laba dhalinyaro oo walaalo ah oo ah Cabdirasaaq Geedi iyo Munashe Cabdilxayi. nikaaxa eriyadan hadda aan fadhino ee Banaadir iyo Zoobe iyo hoteelada ku yaala aroosyada lagu qabto in badan oo kamid ah Sheekh Cabdilxayi Kaali Meheri wal yiri waana ka meheriya maanta bariga hore waxaan ku meherin jiray bi wakaalati waliyaha iyaaya laakiin maanta bakaara toos waay waa cidba wakiilatay iyo cidba ay idantay iyo ma jirto hal arrin way ku jirtay oo waxa meesha fadhiya sheekhi hooyadeed ii meheriyay Sheekh Muxudiin Cumar Jumcaale waxaan marka u soo bandhigay aan ku yiri taariikha ku noqotee hooyadeed baan meheriyay ayadana waan meheriyay gabadha hal la dhahe kaale gabadha meheri sheekh waan u bandhigay oo idmay marka wuxuu yiri taariikhdaasna way jirtaa laakiin bakaara toosna way fiican tahay marka waan isku ognahay in yaani saas la yeelo idan kaasna wuu jiraa waana fursad runtii qaali ah oo la heli karin in dadkaas la isla helo waxa ila fadhiya oo wiilkayga Cabdirasaaq dhinaca bidix ka fadhiya aabahay Sheekh Aadan Sheekh Xasan marka waa arin aad u qurux badan oo raali isaga wada yahay